horta maxaad u guursatay gabadha islaameed maxaad u soo xaraysatay oo aad gurigooda uga soo kaxaysatay ma taqaanaa jacayl ah laa ilaaha illa allah waayahay طيب jacaylku inoo iman doona insha allah haddii alla yidhaahdo mushkiladda ugu weyn hadda saa'ilkaasi walaalkan dhanka dhalinyarada jawaabtiisu waa midda wax kharibtay weeye mas'alada marka laga eegay waan ku jeclahay waa idinku jeclahay beerka i xanuunaya habeenkii ma seexdo kaala i seexi i waa walwalay taa weeye marka gabdhaha lagu soo xareeyey wixii waa dhammaaday durbo waa la kala tegaya ayib horta koo waxaa la isu guursadaa haddaan idiin soo khulaasayo mar koobaad in la helo gabdhaha ma weydiiya su-aasha ay gabdho ciidankan gabdhuhu aad u badan yihin maasha allah waxaa la yidhi gabdho iyo maxaa lihi jirayba iyo hadalba ducala-aan bay tarmaan maasha allah gabdhaha ilahay waa noo tarbiyey tabaaraka watacaala aya gabdhihiinaan dhexda qaybtan fadhida maxaa la isu guursadaa ko mas-uuliyad waxaa la isu guursadaa inaad mas-uuliyad qaado balota in lagu tajrubeeyo ma tahay qof horta mas-uuliyad qaadi kara mise matid ya waxaa loo guursadaa in sakiino iyo deganaan iyo xasilooni in la helo waxaa loo guursadaa inaad ka soo baxdo calool xanuunkii iskaabulanimada ya yani madax xanuunkii iyo walbahaarkii iyo walwalkii iyo xaqla xanuunkii iyo madax xanuunkii iyo korontada kaa maqan hataa qofka iskaabulada gurigaa ka dacwooda maxaa gurigu saaka ka tegay aroortii duurigii oo sidii u laaban buu u soo noqonayaa laakiin markay gabadh yar guriga kuu joogto magaca sheekh ninka saailka ya faysalow faysalow markii aad saaka aad ka baxdo guriga oo gabadh yaroo qurux badan aad guriga uga tagto oo mar alla markaas saa u baxdo sariirta aad ku seexata ay si fiican u jafto go ay ka bedesho dariishadaha tirtirto jikada kuu gasho guri idgoon oo caraf badan oo daqsiga soo gala la xukumayo daqsiga xataa daqsiga soo gala la xukumaya markii iridda lagaaga imaado oo horta meesha buqbuqa lagaa fiiriya soo socoto markii lagu arkana si tartiiba albaabka lagaaga furo markaasaa usoo gasho lagugu soo boodo ma ninkaa iyo waxaa isku mid a nin caawa gurigii ka tegay duunigii iyo bustihii si isku laalaabayeen saxankuu saaka quraacda ku cunay baa weli meesha yaalla waxaa loo guursadaa xasilooni iyo deganaan iyo itmi'naan horta in la helo ko waxaa kaloo loo guursadaa shahwada ilaahay qofka bini aadamka ah ku beeray inuu u helo xalaal waa ilaa xaraam buu la aadayaa waxaa kaloo loo guursadaa alinjaabu walxifaadu cala aljinsi albashari bini aadamku inuu tarmo oo bini aadamku inuu bato ayaa loo guursadaa waxaa loo guursadaa istiqraaru lmujtamac iyo wa sacaadatihi bulshadu inay sacaado hesho in qaraabe iyo qoys la helo